السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوياما ايلاند جزيرة كوياما asalka magaca jasiiradan waxa la oran jiray Kondeeq. Jasiiradan waxa loo tixgeliyaa tan labaad ee ugu weyn jasiiradaha la isku dhaw Bajuna Islands oo gaaray lama ay 6 jasiiradood ku yaala dalka Soomaaliya. Ma laga yaabaa inaad hore u maqal magaca Koyama? ku soo dhawo macluumaad rasmi ah oo kaaga diyaariyay jasiirada baaxad iyo bilicda leh ee Koyama Island. Koyama waa jasiirad ku taala koonfurta Soomaaliya gobolada Jubbada Hoose. waana jasiirada labaad ee ugu weyn jasiiradaha Bajuna ee badda Soomaaliya. waxayna 1.5 kilomitir u jirtaa xeebta badweynta Soomaaliya. waxay leedahay kala jidnaan dheer ama dherer 5.3 kilomitir halka baaxadda ama ballaceeda lagu qiyaaso 1.2 kilomitir. muuqaal ahaan waa jasiirad aad u qurux badan oo aan marnaba indhahaagu ka jeesanayn milicsiga daymada ishuna aad ugu muuhanayso. waa jasiirad ay jecel yihiin dadka deegaanku si la mid ah dalxiisayaasha kala duwan ee soo booqdaana ay aad uga helaan. qaar ka mid ah dalxiisayaasha soo booqda iyo dadka deegaankuna xitaa ay habeenkii ku dabshitaan iyagoo aad ugu mabsuusan oo aad ula dhacsan jawiga iyo neecawda qabow ee halkaa ka dhacaysa. iyagoo aad ugu mabsuusan oo aad ula dhacsan jawiga iyo neecawda qabow ee halkaa ka dhacaysa. waxaa jasiiradan Koyama ku xeeran deegaan qani ku ah dhirta nagaarka ah walow ay weheliyaan xoogaa dhiroonta hadleyda oo aad baalaha ugu kala degay kuwaas oo ay dadku ku hoos ciyaaraan oo jawiyo kala duwan ku qaataan xilliga ay ka soo daalaan ku jiritaanka badda. waxaanad marnaba ka xiiso goynaysa waxanka iyo dhawaqa shimbiraha ku duloolaya dhirtan. inta aad meesha ku sugan tahayna ma jeclaysanaysid wax ka duwan shimbiraha codkooda iyo jawiga nacawda dhacaysa. aad baan u necbaysanaysaa wax kasta oo kaa qasaya xaaladaas. waxaa dhulkan caan ku yahay ciidda cad ama ciidda loo yaqaano tamuuxda ee alaaba biyuhu ay ka fiidmaan xilliga badda oo markaad cagaadaan ku marayso aad jeclaysanaysa sidii carruurtii inaad mutuliyaal ku sawirto ama magaca qofka qalbigaaga ku weyn inaad dhulka ku xaradho adigoo hareeraha ka xigsiinaya wadnayaal aad u balballaaran oo qurux badan. inta iyo waxyaalo badan oo kale waxyaalaha kaa suurtoobay intaad meeshan joogto inaad samayso maadaama kaliya halkan waxa loo yimaadaa ay tahay madadaalo iyo jawi bedelasho. waxaa jirta dhalinyaro isxilqaantay oo jasiiradan ka hirgeliyay barnaamijka la taxalluqa doonyaha iyo gaadiidka lagu dabaasho waxayna dhammaystireen dhammaan agabkii looga baahnaa asaasiga ahaa badda. alana waxay mar walba kor u qaadaan oo dhiirigeliyaan dhalinyarada timaada iyagoo dhammaan ka caawiya agabka ay uga baahan yihiin badda oo kolkii aad badda timaadaba waxaad hore u sii qaadanaysaa laashkaaga. mana jirto wax mushkilada iyo dhib aad ku dareemaysaa intaad ku jirto gudaha badda. xaaladda iyo waqtigaad halkaa ku qaadatayna wuxuu noqon doonaa mid aad in badan ka sheekayso waqtiyo badan gadaashoodna aanad ilaabaynin oo marnaba aan maskaxdaada ka baxaynin aadna ka sheekayn doonto inta noloshaada ka hadhay. jasiiradan Koyama waa jasiirad ilaa xilligii Talyaaniga Soomaaliya joogay caan ka ahayd waxaana ahayd mid ka mid ah jasiiradaha ugu caansanaa ee waqtiga. hase ahaatee waqtigan ma ay helin wax aqoonsiya dhalinyaraduna kuma baraarugsana waxayna noqotay jasiiradaha la ilaabay ee uu dalku leeyahay. mana jirto cid aqoon u leh jasiiradan kaliya dadka ku nool aagga iyo dadkii berigii hore mooyaane. waxay noqotay jasiirad gebi ahaanba ka baxday dhalinyartan dambe maskaxdooda oo aanay ku baraarugsanayn maqalla sida jasiiradaha kale ee magaaladu caansan yihiin si xeebta Liido oo kale iyo qaar kale oo ka mid ah wadanka.
kadib dagaaladii sokeeye iyo burburkii soo gaadhay dalka waxaa aasmay wax kasta oo qiimo lahaa, waxaana la waayay wax kasta oo lagu faani jiray. dhalintu waxay u jahaysatay waddamada Yurubta kadib markii ay weysay dowlad awood leh taasoo shaqo abuur iyo dib u habeyn ballaaran ku samaysay dalka. sidoo kale ma aysan jirin saxaafad Soomaaliyeed oo ku hawlan muujinta dalka Soomaaliyeed ee kala gedisan iyo khaasatan meelaha quruxda badan, jawiyada lagu raaxaysan karo, meelaha isbeddelka laga muujin karo ama wax soo saarka laga samayn karo. gebi ahaan waxaa hoos u dhacay wax kasta oo qiimo lahaa, waxaana kor u kacay qabyaaladda iyo ninjeclaysiga taasoo sababtay fashil hor leh. waxaanay jasiiradan Koyama ka mid noqotay meelaha aasmay aan dib loo xasuusan magac ahaan iyo manfac ahaan midna, iyo dhulka la ilaaway gebi ahaanba keliya ay taqaano inta ku xeeran ama deegaanka degan. hadalhayn dambana ma aysan yeelin ilama ay xilligii Talyaaniga oo waxa taqaano oo keliya inta ku dhow ee aagga degan. intaana waxaan ku saafmeerayaa warbixin kooban aan kaga hadlayay jasiiradda Koyama ee ku taala gobolada Jubbada Hoose. intaadan bixin ka horna waxaan kaa codsanay inaad hubiso kanaalka inaad subscribe dhacday aad wax badan ka faa'iidi doonto, muuqaalka inaad sii like garayso, asxaabtaada inaad la sii share garayso muuqaalka si ay wax badan uga ogaadaan dalkooda hooyo iyo meelaha manfac iyo qiimaha leh.